aniga damiirkaygu ma joogo wiilkayga waa la dilay xabadaana dhabarkay halka wadnaha ka gashay halka kale ka baxday wiilkiina sidaas ku dhintay ninkii dilay waxaan rabnaa tani waa dhacdo kale oo murugo iyo xanuun badan oo qabsatay hooyo Nuura Cali Nuur kadib markii shakhsiyaad ka tirsan ciidamada dawladda ay si bareera u dileen Allah u naxariistay marxuum Cabduqaadir Nuune oo ahaa wiil dhalinyaro ah si weyn looga yaqaanay xaafadda Waxar Cadde degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir cunug 4 sano oo aabis ku dhinto hooyada 8 sano ku dhimato dhibkiis gaaray qofkii uu ka dhinto soo korsaday oo ilaa heer jaamacadeed gaarsiiyay ilaa heer waxbarasho ilaa heer dugsi quraan qofkii gaarsiiyay oo maanta malabka uga macaanay dhibkaatada ay qofkaas iyo waxa moraalka iyo qalbigeeda gaaray qofka aqli leh oo damiir islaamnimo ku jirto ama damiir way garanaysaa Allah u naxariistay Cabduqaadir Nuune ayaa dhamaadka toddobaadkii tagay waxa uu ka qalin jibiyay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho maalin kadib qalin jibintiisa xilli habeena jimca ay soo galeysay isagoo wata cashadiisa ayay dhabaha u galeen dableedii hubeysneed kadibna ay rasaas ooda kaga qaadeen halkaasna uu ku nafbaxay sida ay ii sheegtay hooyo Nuura oo wajigeeda laga dheehan karo murugo iyo tiiraanyo aan xad lahayn taas oo sabab u ah ubixii ay ku soo tiir iyo tacab beeshay si sahal ay u dileen askar ka tirsan ciidamada dawladda wiilka guriga u soo socday guriga hooyada ay tag weeyo ku wata cashadiisa niman baa dilaa laygu yiri ciidanka dawladda dhacdaas waxay ka dhacday Waxar Cadde waliba qaybta Hurwaay xigta ayay ka dhacday masaajidka orfan agagaarkiisa ninkii yaqaan wiilkayga waxaan codsanaa maxkamadda sharafta leh oo ciidamada qalabka sida maadaama wiilkayga oo gacantooda ku sababsaday maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan ka codsanayaa xeer ilaaliyeeda ka codsanaya cadaaladdeeda ka codsanaya inay nimankii wiilkayga dilay cadaaladda ay marsiiso hay'ashee dhacdadan oo uu ku taala ku reebtay shacabka degan degmada Hilwaa gaar ahaan xaafadda Waxar Cadde ayaa sidoo kale fajac ku noqotay dadka deegaanka oo dhacdada kadib oo isku dayay in markii xabadda ay ku ganeen Cabduqaadir oo dhaawaca ay meesha ka qaadaan si ay isbitaal ula cararaan hase yeeshee kooxdii dilay Cabduqaadir ayaa diiday in halka laga qaado isla markaana dadka ugu hanjabay in ay dul saari doonaan qofkii isku daya in uu dhaawaca Cabduqaadir halka ka qaado si bareer ay u dileen dhac u geysamayn si bareer ay u dileen waana diideen in la qaado wiilada ku soo baxay waan qaadna marxuunkaanay dheen waa marxuun ma aan markaas war dhaawacaan qaadanay dheen carqaada la yiri marqaati ay leedahay wiilashayda wiilkaygu inuu bartaas ku dhiig baxay xabad 3 xabadood ay ku rideen 3 xabadood ay ku rideen 2 xabadood wiilkayga kuma dhicin xabadii kale afsaar uga dhigeen labada kaliyood la baxday ugu dambeyn qaar ka mid ah ehelka Cabduqaadir Nuune ayaa fariintan u diray hay'adaha dawladda kana dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadkaasi dilka u geystay Cabduqaadir Nuune xabadaana dhabarkay halka wadnaha ka gashay halka kale ka baxday wiilkiina sidaas ku dhintay ninkii dilay waxaan rabnaa cadaalad in loo marsiiyo wax kale deeqa ma lahan dhiig baxana markaas walaalkay oo ana iskooya ahaynay hooyadii oo aabahay iskooyaan anay asaga walaalkay waay kadib maamo way qaadeen meesha cabaar ku adkeen inay qaadaan diideen kadib ninka taliyahaas ku diiday anaga waxa codsanay cadaalad nalno Cabduqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho